Bayaan ay soo saartay Jimcihii, wasaaradda warfaafinta ee Eritrea ayaa ku dhawaaqday in xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea la calaamadeeyay markii ugu dambeysay si aan weligiis waxba loo beddelin. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xadka labada dal uu salka ku hayo go'aankii guddiga xuduudka ee Eritrea iyo Itoobiya, waaf xuduud la aqoonsan yahay oo si sharci ah loo xaqiijiyay, ayay tidhi. Haddaanay jirin ku xadgudubka sharciga ee u dhexeeya Eritrea iyo Itoobiya ama Eritrea iyo Tigray, ma jirto arrin kale oo keeni karta khilaaf, ayaa lagu daray qoraalka. Xuduudaha isirka ku salaysan ee Eritrea waa wax aan caadi ahayn in dowladda Eritrea ay kala saarto qowmiyadda Itoobiya iyo qowmiyadda Tigreega, mana cadda sababta hadda arrintu u dhacday. Intaa waxaa dheer, Eritrea waxay sheegtay, sida ay ku warantay idaacadda Wazema, in dadka Itoobiya ay casharro ka qaateen dagaalkii xuduudda ee labada dal oo sababay burbur ballaaran. Dagaalka xadka labada sano socday ku dhowaad 20 sano ka hor ayaa la sheegay in ay ku naf waayeen in ka badan 80,000 oo labada dhinac ah. Itoobiya iyo Eritrea waxay lahaayeen xidhiidh nabad la'aan iyo dagaal 20 sano kadib dagaalka. Waxay soo afjartay markii Abiy Ahmed uu ku dhaqaaqay wax u muuqday waagaas siyaasad cusub oo ah in Eritrea saaxiib laga dhigo. Xiriirka labada dal uma wanaagsana sidii uu u muuqday 2018 kadib markii xukuumadda Abiy Ahmed ay sheegtay in la geli karo badda cas, taas oo dad badan ay u fasirteen in ay tahay istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu weecinayo mucaaradka sii kordhaya ee maamulkiisa gudaha. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaan weli ka hadlin ku dhawaaqista Eritrea. Dhowaan waxaa soo baxayay eedeymo loo jeedinayo Eritrea oo ah in ay ku dartay qayb ka mid ah beesha Irob oo qayb ka ah Eritrea oo beesha yar labo u kala qaybisay.